السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وحنا دي كسلام يا سلامة إسلامك ميل والبيت الدنيا كذا سجتين وواسك تقبله وها قبله فارح ولا الكيس معه كي كيرا بشير بالله متانا هاين حسن قر صاحب كيس قرش ودرس كيس كنا ولا أراؤنا قرسي كوسا هاجا بكجا لقتي مع الشورية بناوين شنطة بغبغوري دمانتين سود وادا سبيشالي رين نبض ينولل دادك aan ka dhashay ee aan ku faano reen nabad iyo nolol soo dhawaada sheer gareey cadaladan gaarsiiya beech walba iyo meel walba ku tuura idinku maasan waanu ka guuleysanay cadawga dalkeena ku soo duulay haduu yahay mid shisheeye iyo mid sokeeyaba nabad iyo nolol wax walba lagu day waxba laga qaadi waa nabad iyo nolol waa dhalinyaro gabdhiyo wiilal ka kooban go'aan ku gaaray dalkooda inuu hagaago qabiilna aan aaminsanayn waxa amiir u ah madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ka tirsan gabdhaha iyo wiilasha hadday daawanayo adduunyada dacaladeeda kala joogo waxa ka tirsan wasiiradeena dalka Soomaaliya ugu horeeyo ra'iisul wasaare ku xigeenkeena dalka Soomaaliya hero haliyay mudane Mahdi Guuleed ma sha Allah waa nabad iyo nolol mooryaanta baraha bulshada waa mooryaanta baraha bulshada dhax fadhido ee hadda ceebtooda aad daawanaysaan aad arkaysaan bahdilka ay u dhax taagan yihiin social media waxay isku dayeen inay magacyo inoo sameeyaan waxay damceen ay yiraahdaan CBB cayaanka baraha bulshada dhax taagan manunihin anagu waa ayaga kuwa TikTok-ga ceebtoodu ay dhax taalo waa ayaga kuwa Snapchat ceebtoodu ay dhax taalo waa ayaga wiil ama gabar reen nabad iyo nolol leh oo ceeb social media la dhax joogta male gabdhaha iyo wiilasha aaminsan nabad iyo nolol waa dad wax bartay waa dad shaqaysanayo waa dad nolosha qoysaskooda heer ka gaaray iskuna dayay Soomaaliya iyo dalkoodii quruxda badnaay Soomaaliya inay heer gaarsiiyaan ma sha Allah and I'm proud of you reen nabad iyo nolol aad baan idinku farxaa sheer gareey cadaladan maanta waxa soo dhigay sawir oo aan gaariga aan ku shaqaysanay taraaga aan accident ku galay ilaahay baa iga badbaadiyay dad badan oo Soomaaliyeed baa isoo duceeyay ka soo falceliyay si wanaagsanna igu soo duceeyay waa mahadsantihiin wiilkiina nahay mucaaradi muxaafadba aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa nabad qaba wax dhibay ma gaarin ma sha Allah magaalada deganaa Minnesota si nabad baan ku imaaday waxaan ku jirnaa waqtiyadii barafka bishan waa bishii November oo qabowyaha inoo bilaabanayay barafkii soo daahi jiray ayaa soo degdegay oo dabeelo wato qabowna wato qabowgaasi iyo barafkaasi iyo dabeesha markay isku dhacdo wuxuu isu bedelaa wax la yiraahdo black ice macnaheedu waxa weeye laamigi yaa wuxuu noqonayaa dhalad baraf oo dhagax marka qofka iyo taayirka iyo wax walba ku istaago wuu sanbaraxanaya marka ilaahay baa iga badbaadiyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee taragyada ku shaqaysata sideedoo kale muruqmaalkaana ilaahay ha ka badbaadiyaan la insha Allah inta wanaaga jecel iyo inta fiicnaanta jecel ilaahay ha amaansado waa aabayaal carruurtooda iyo familiadooda u xamaalanay wadanka qurbaha ka xamaasho anoo kaleeto bariiska raasanayo ilaahay ha ku amaansadaan leeyahay intii ka soo falcelisay ee wanaaga uga soo falcelisay ayagana waan u mahad celinayaa afarta xunna waxa weeye looma jawaabo waa la ignore gareeyaa ayaga bakhtinaya aadiyo marka ma sha Allah waa nabad qaba si nabad baan ku imid Minneapolis iyo Minnesota wax dhibay ma gaarin wax damage macnaha gaarigayga aad u tir badan ma soo gaarin waxaan ka ahayn bambarka hore oo gaarigayga jajabay insha Allah waxaan rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan shaqada dib ugu noqdo reen nabad iyo nolol soo dhawaada ma sha Allah waxay ahayd inaan shalayto oo sabti ah idin update gareeyo week hal mar baan live hadda maalmahan soo galaa xaaladdu waa degan tahay
marka arrintaas ay qabsatay laakiin waa kana cajaladiinii aad sugayseen ee nabad iyo nolol iyo ugaasyada ee duqbilow siyaasadda Soomaaliya qaybteena nabad iyo nolol meel wanaagsan oo fiican oo qurux badan ayay maraysaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xafidullah madaxweynaha qarankeena Soomaaliyeed waad aragteen siyaasadda iyo deganaanshaha uu dalkeena u keenay siyaasadda degan ummadda Soomaaliyeed markhaati bay ka tahay horay ummaddu waxay u baratay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kala ah oo aan lahayn press secretary oo aan lahayn wasaarad warfaafineed oo aan nidaam dawli ah ku dhaqmin oo xasan habeen iyo maalin uu taagan yahay idaacadda oo wax walba ka jawaabayo wasiirka arrimaha dibadda shaqadiisa ka jawaabayo wasiirka arrimaha gudaha shaqadiisa ka jawaabayo xalfad yar oo qalanjibin oo duqbilow dhigto asaa taagan oo ka hadlayo nidaamka adduunka midda kuma jirto madaxweynaha hawl qaran iyo shaqo inuu qabto yaa loo doortaa wuxuuna madaxweyne u yahay markii qofka la doorto Soomaali oo idil karaas caseer joogo iyo Hargeyso iyo meesha la yiraahdo Boosaaso iyo Baraawe iyo Afmadow iyo magaraysaay Baydhabo yu madaxweyne u yahay waxa la doonayaa madaxweynaha inuu shaqadaasi qabto shaqada idaacadaha iyo ka jawaabideeda iyo barees la sii deynayana shaqaala loo hayr gareeyaa wasiirka warfaafinta loo daayaa shaqadiisa xasan yay dadku barteen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo nidaamkan uu u keenay ee deganaanshaha ah ee wasiirka arrimaha dibadda shaqadiisa si toose oo nidaamka dawliga ah ku dhisan uu u qabsanayo keenay wasiirka warfaafinta dubbe inuu shaqadiisa qabsado waqtiga uu doonana uu live soo galo saqdi dhaxabeenkii wasiirka maaliyadda inuu economiga iyo dhaqaalaha ka shaqeeyo wasiirka gaashaandhigana uu ciidanka iyo tababaradiisa iyo magaraysaay nidaam jaangoontiisa uu ka shaqeeyo madaxweynahayna bare madaxweynaha Soomaaliyana inuu dalka siyaasadiisa guud u dajiyo oo uusan ka mashquulin wax uu duqbilow yiri iyo wuxuu xasan guurguurta yiri iyo wuxuu sheekh shariif yiri iyo wax bagaalada laga yiri oo aan cadeen rasmi aan lahayn inuusan ku mashquulo inuu dalkan iyo ummadda Soomaaliyeed ee 30 sano dhibaatada ku soo jirtay inuu ka saaro waana ku mahadsan yahay madaxweynaha qaranka mooryaantii baraha bulshada woloodadii wadamadii dalkeena ee ugu horreysay Jabuuti iyo Kenya farafareen jiray dadkii dalkanaga horarka ku ahaa siyaasadan waa la qabsan waayeen siyaasadan waxay dan u noqotay ummadda Soomaaliyeed oo adiga hadday daawanaya aad ka kowtahay hooyada xamar deganna ay ka kowtahay hooyada Garowe deganna ay ka kowtahay hooyada Hargeysa deganna ay ka kowtahay hooyada Baydhabo deganna ay ka kowtahay hooyada Kismaayo deganna ay ka kowtahay hooyada Beledweyn deganna ay ka kowtahay yay siyaasadan dan ugu jirtay qabkii iyo sharaftii dalkeena dib u soo noqday ma sha Allah ummadda Soomaaliyeed in la karaameeyo caalamka ayaa dib u soo noqotay ma sha Allah siyaasaddaasi way noo degantaa oo nabad iyo nolol amiirkeedii iyo amiirkii ummadda Soomaaliyeed ayaa arrintaasi dalka u keenay waana uga mahad celinaynaa mudane maxamed cabdullaahi farmaajo cadowga Soomaaliyeed iyo cadowga sokeeye ee shisheeyaha u shaqeeyay la soo adeegsanayay ee dalkeena isku dayay kol kasta inay burburiyaan xumaana ka sheegaan waa ka guuleystay farmaajo saqiirada Soomaaliyeed baa og hooyooyinka Soomaaliyeed baa og caalamka og dariska og Soomaali madaxweynayaal baa soo mari jiray laakiin waxna waa qaban jiray laakiin eedooda badneed eedooduna waxay u badneed hunguri xasan baa ugu dambeeyay xukunka lagala wareegay caalamku waxay ku eedeynayeen ummadda Soomaaliyeed inuu dhacay hanti qaran hantidii deeqaha ahayd dhulka eelaboorka ku agyaalay hanti badan oo militariga Soomaaliyeed qarashkooda ahaa inuu dhacay oo mishaar qaadan jirin ciidamada yaa TV-yada iyo Soomaaliba meel walbay fadhido
looga sheekaysan jiray laakiin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo cadowga shisheeye iyo ka sokeeye iyo kuwan siyaasadda sheeganaya ee ku fashilmeen hadda ka sheekeynayay waxay la daba istaageen mikrafoon been ka hunqaacayso madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo tallaabooyinka ugu horreeyey ee labadiisii sane ugu horreysay uu qaaday waxay ahayd in wiilashii Soomaaliyeed ee laga samray ee ayagoo nool fiiri ayagoo nool hooyo aabbo aday daawanay wiilkaagoo nool aad ka samartay oo ku xiraa Liibiya oo ku xiraa Itoobiya oo ku xiraa Carabaha oo ku xiraa Mareykan oo ku xiraa Yurub oo si macna la'aan lagu haysto asoo nolol raadisa laga samray asoo nool hooyadiina aan lawyer u qaban karin hooyadii aan ka soo deyn karin yuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo gud u xilsaaray wasiiro safiiro isugu jiro wiilashii Soomaaliyeed yuu dalkiisa dib ugu soo ceshtay iyo gabdhihii Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed way hilmaantay laakiin waa loo muraajiceen ummadda Soomaaliyeed waxa hilmaansiiyay mucaaradka imaaraadku lacagta soo siiyay iyo Kenyaanku ay lacagta soo siiyeen ayaa hilmaansiiyo been iyo barbagando ayay ku shubayeen wiilashiisii buu la soo noqday waa sanadkii ugu horreeyay 2017 markii la doortay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo xamar buu ka soo dejiyo waxaad arkayseen oo daawanayseen wiilal iyo gabdho carrada shuminayo mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sameeyay mikrafoon been ka socotay mooryaantu ku qarinayeen dhaqaalaha dalka Soomaaliya hadday noqoto midda anshuurta ee la aruuriyo iyo deeqaha beesha caalamka ka yimaado rag bay jeebkooda ku dhici jirtay accountiya feega kaarar feega iyo magacyo feega intay samaysteen bay qutul daruurigi yaraaye Soomaaliya lagu dhaqaajiyo loogu talagalay yay guriyo Nairobi Turki Imaaraat businessyo u gaar kaga samaysan jireen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu xushay elite-ka Soomaali ee magaraysa ee financialka dhinaceeda ku sareeyo oo uu hogaaminayo xafidullah wasiir Beyle waxay hagaajiyeen bangiyadii dalka Soomaaliya waxay si fiican ula macaamileen meesha la yiraahdo qolada World Bank iyo IMF-ta iyo si wanaagsan oo qurux badan ula macaamileen heer wuxuu ina gaarsiiyay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo beesha caalamku inay tay fariisa tiraahdo wiil Soomaaliyeed baa yimid oo daacad ah aan la xaaltami karno hungurina inaga gali kara Soomaaliya inaan investment gashanno aan la fariisanno deemihii horeen ku lahayn aan qaar ka cafinno ummaddu way ka dharagsan tahay laakiin mooryaan iyo imaaraad iyo Kenyaan baa mikrafoon been ka socota qaatay ummadii dhagaheedii gubay dhageysta hadalkaadu dhageysto waa xaqiiq way qarinayaan amaantaas farmaajo iskale waana wax uu qabtay ummadda Soomaaliyeed waxay markhaati ka ahayd 2014 iyo 2015 iyo 2016 in ciidamo dareys wato Soomaaliyeed militariga Soomaaliyeed iyo booliska Soomaaliyeed ka tirsan inay xamar xabada ku rudi jireen dhawaaqi jireen mudaharaadi jireen caban jireen ooyi jireen dhihi jireen ciidan baanahay dalkiisa difaacayo mishaar ma qaato ilmahaygu way gaajaysan yihiin ilmahayga waxaan siiyaan doonayaa anigu wax ma doonaye Soomaaliyay nafsadeydan idiin hibeeyay carruurta ii quudiya askari dhahayaad ka daawan jirteen TV-yada Soomaaliyeed normal bay u noqotay Soomaali oo idil inay dhageystaan askarigaas oo calaacalayo waxna kama aysan qaban jirin laakiin wax waa loo heli karay oo madaxweynihii waqtigaa jiray Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiiradiisii yaan isu xil saarin
dhaqaalaha waxay u moodi jireen inuu ku yimid si bilaash in bilaash lagu qaato iyo iska dhaadhiciyeen caruurtooday dibadaha uga diri jireen guriyay kaga dhisan jireen Tanzania iyo Nairobi iyo meesha la yiraahdo Turki mudane maxamed cabdullaahi farmaajo markuu yimid miyaad aragteen wiil Soomaaliyeed oo ii dhimanayo askarigayga ah oo banaanka taagan oo ka calaacalaya in caruurtiisu quud la'aan yihiin miyaad aragteen maya ma arkin ma dhicin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo khubaradii dhinaca ciidanka iyo defensiga iyo financial kooda yaqaanay buu xushay miisku fariisiyay wuxuu ku yiri askari Soomaaliyeed yuusan gaajoonin almost 5 years buu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xafiiska joogaa askari walba 24 bisha ka ugu dambeeyana 27 bisha ya accountigiisa telefoonka ugu soo dhacda EVC-ga amaanta farmaajo iskale iyo tiimka la shaqeynayo Imaaraat Mooryan Kenyan waxay isku dayayaan makarafoon been ka socotay inay qaataan oo ummadda dhagahooda ku afuufaan shalay xukunkay ii hayeen miyay qabteen waxa uu qabtay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa maya shalay taladay hayeen ma isku dayeen inay askariga Soomaaliyeed mishaarkiisa siiyaan waa maya shalay xukunkay hayeen miyay isku dayeen Soomaaliya in financialkeeda ay dajiyaan waa maya Soomaaliyeed xaqa Allah jecel dulmiga ma wanaagsano madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo asoo intaasan ka soo hadlay oo wanaage sheegan karo makarafoonka qaadan karo oran karo intaasan sameeyay maalinna intuu idaacadda yimid ma uusan oran waxaasan qabtay sababtoo ah dadkiisii iyo dalkiisii iyo ummadiisii u qabtay kuwa mucaaradka sheeganayo ee doorashada hadda ku dhaganay siriray mudane maxamed cabdullaahi farmaajo 2018 markii laga baxay London buu isugu keenay maamul goboleedyada dalka ka jiray oo uu hadda ka haray Axmed Geedanaar wuxuu yiri dalkeena aan badbaadsanno doorashaha ka dhacdo AMISOM iyo UN yeysan isku dayin dalkeena inay maxmiyad geliso garbahay qabsadeen way soo socotay 2019 July markii Soomaaliya loo dabaaldegay xorriyadeeda waxa garbaha isqabsaday odagan Cabdi Xaashi ay yiraahdaan eed aragteen siduu u dhawaaqay ugu dambeyn kursiga xirtay yiri anigu kursiga halaysiiyo ee hunguridoonka ah ee kursidoonka ah ee Soomaaliya doonayn waa soo dhaweeraya waqooyiga Soomaaliya u ka soo jeedaa Cabdi Xaashi ra'iisul wasaarihi hore dalkeena mudane Xasan Cali Kheyre gudoomiyaha baarlamaanka mudane Mursal iyo xafidullah mudane maxamed cabdullaahi farmaajo garbahay isqabsadeen Soomaali oo dabaaldegayso horteeda waxay saxiixeen in dalka loo diro one man one vote mandate kooda jiray markaa ayada ah hadalkooda shaqeynayay mas'uuliyiinta markaa ayada ah madaxweynaha waa ka go'onayd guddigii doorashooyinku diyaariyay dhageysta dalka guddigii doorashooyinka ayuu diyaariyay markii doorashadii dalka Soomaaliya loo diri lahaa muddo inteena dhammaan mandate-ka dawladdan hal sano ka hor Xasan Sheekh Maxamuud baa Turki ka soo duulay kana soo degtay Muqdisho Sheekh Shariif baa ka soo duulay Uganda kana soo degtay Muqdisho Cabdiraxmaan Badagate oo weligii Muqdisho dhex joogay oo isu yimid makarafoon bay qaateen waxay yiraahdeen Soomaaliya makarafoon been ka socotaa dhagihiina lagu afuufee dhageysta runta waa la idin muraajaceyn xaqiiqdaad ogaanaysaan wuna ka guuleystay farmaajo dalka u baahan hooyooyinkan u baahan madal bay sameysteen waxay yiraahdeen farmaajo wuxuu doonayaa inuu sameeyo xoogaga wadaniyiinta wax la yiraahdo xoogaga wadaniyiinta wax la yiraahdo ayuu rabaa inuu sameeyo inay asaga codka boobaan bay doonayaan ma doonaynay yiraahdeen doorasho one man one vote
ما دونينو دورشة ون مان ون فود ما دونينو يراهدين ويدواقين عيدا بي أحبر وعذيرو واد أكتهين حسن شيخ محمود إيا شيخ شريف بيرو هوضي دحقلين واد أكتهين شركي السعودي قبائل ذا أفا كله فن ماي مدحوين محمد عبد الله فرماجو وحي واديك سدين أحمد كياتي إيا داني بعبع روسا مريب بالله يسوقو تغي رئيس الوزاري مركز صحيحي 2019 كي إحاس على غير رأها يا وحلو أفوفي الرجل دم بالله شيء رئيس الوزاري بعدين عكلا قالوا يري ون مان ون فوت ما شقينيش مدحوينها أنا واقع قوني مدحوينها روسا مريب وتغي وحي يري دل كان قدنينينا أنا ون مان ون فوت يا شعب كل الدورة يا ويري ويك قدك تحمد مذوبة إيه الدني إيه حاس على غير وحي يرادين سعون ميسو دور شدد برهل آدو أو قبيل كسليسن مدحوينه أصود ضدك دينته ومده ودنينا يطلدوا ضيقات وادو قيدين صوماليين إن شركي دو سمريب لو كلا كعيي لو سو النقونيين وادو قيدين حمر مركي يمادين أحمد مذوبة إيه الدني أو عيدا وطو إيه الرصاص يهوب وطو waxay yiraahdeen waad ogeedeen waxay yiraahdeen waa in beesha caalamka gaalada safiiradooda xalana jooga weynayna soo dhaxgalaan waa inayna heshiisiyaan dad sida inoo bahdilay ayay ahaayeen mas'uuliyiinta hadda horjoogyaasha qaarkood mucaaradka kuwa sheegto waa u riyaaqayeen waa lagu heshiin waayay wixii socday Soomaali waa ogtay baarlamaanka Soomaaliyeed maalinku go'aanka qaatay ee uu yiri doorashadii dadbareed ee qabiilka ku salaysneed dani Axmed Madoobe waa dhaqaajin waayeen gaalna dalka soo faragelin maayo dalkuna waa xor markuu baarlamaanka yiri ee yiraahdeen muddo 2 sano ha lagu qabto doorasho one man one vote waad ogtihiin hubkii Axmed Madoobe iyo dani ay keeneen Muqdisho iyay u dhiibeen Xasan Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan Cabdishakuur Xasan Cali Khayro ra'iisul wasaare ahaan jiray iyo Sheekh Shariif kuma jirin xafidullah dagaalka Sheekh Shariif lagu eedeyn maayo waad ogeedeen inay Mariiniya iyo xaafadaha Muqdisho dhoobada taagteen oo hubka la soo baxeen qoriga ku taageen ciidamadii qaranka Soomaaliyeed waa la socotaan madaxweynaha hadda soo u dareenayo oo dalkii mar labaad u dareenayo uu tanazula wuxuu yiri 2 sano ma jirtee ha lagu soo noqdo miis waliba wuxuu yiri ra'iisul wasaarahigan ku wareejiyay doorashada Soomaaliya waad ogtihiin waadna la socotaan laakiin waan idin muraajiciinaya anoon detailka ku dheeraanayn ra'iisul wasaarihiisii uu ku wareejiyay doorashada yiri qabo banaankaasaan ka istaagi intay doorasho dhacaysana waa sugaya farmaajo idaacadna kama hadal wax idaacado ka hadlay haba yaraatay ma jirto ra'iisul wasaarihii loo dhiibay doorashada waad la socotaan mucaaradka intay dhagaa wax uga shubeen oo buuq ku shubeen oo yiraahdeen dagaalan oo buuqgal oo ismuuji oo la helo waatay oo awood malihid waad ogtihiin Soomaaliya waad la socotaan farmaajo afkiisu haysto dalkayga ha socdo taagnaa dalkayga hor ha u socdo ayuu taagnaa waad ogtihiin rooble doorashadii loo dhiibay wuxuu u bedelay waad la socotaan inuu waqtiga dheeraysto inuu howlo kaloon doorashadii qusaynin soo dhaxgeliyo inuu Kenya aado معوس أصو حرنكي أها أهورو Soomaaliya waxa soo dhan waa wax dhacay kuwii mucaaradka ahaa ee hubka qaatay ee dalkeeno duulaan ay Kenya ku tahay ka hadal umadeeno ay Kenya xasuuqaysa aan ka hadal waxaad ogtihiin waxay idaacadaha la taagnaayeen mudane Maxamed Cabdullaahi farmaajo oo wareejiyay doorashadii ayay mikrofoonkii ku qarwiyeen farmaajo doorashada ku dhagan waxaana lagu wareejiyay Rooble waxaana lagu wareejiyay Rooble waa loo muraajiciinaya ummadda nimanka mucaaradka sheeganayo ee badi isku qabiilka u badan ee Axmed Madoobe dani ku jiraan halina ummadda intuu hor yimid badidooda rag xukun soo wada qabtay weyn halina intuu ummadda hor yimid yiri walaalkaygiiyo duqbilow iyo walaashayda hadda ay daawanayso dalkan baan ku soo kordhin wanaagan waxa baan dalkayga u qaban nin yiri male dagaalkooda hal shakhsi oo dalkan wax u qabtay buu ku salaysnaa heshiiskooda iyo siyaasadooda iyo manifestigooda wuxuu ku salaysan yahay farmaajo diid
male dalkan wax ka qaban male amisom baan dalka ka saari male ummadda Soomaaliyeed abaaraha ku soo noqonayo ayaan ka badbaadin male ceelasha shidaal ee dhulkeena ku jiro yaa soo saari siyaasi ileh male mid walba mikrofoonka qaato wuxuu ku leeyahay farmaajo xun muxuu ku xun yahay ma wiilasha uu ka keenay dibadda ee ku dayactirna xabsiyada adduunka ayuu ku xun yahay waa maya ma wuxuu ku xun yahay hawadaydii dalka Soomaaliya uu ku soo celiyay ayuu ku xun yahay waa maya ma badaydii Soomaaliyeed oo dagaal u galay oo ii soo celiyay buu ku xun yahay waa maya ma Soomaaliya financial system keedi inuu dajiyo oo deentii layga cafiyo ayuu ku xun yahay waa maya dhageyso min militariga xooga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ee boolis kale ee asluub leh ee wax walba leh inay mishaarkooda qaataan oo moraalkooda u dhismo ayuu ku xun yahay waa maya mucaarado maxaad umada u haysaa maxaad u sheegi kartaa maxaad leedahay farmaajo intuu qabtay in ka fiican baan qaban karaa male qabiil baa dilooday qabiil baa maskaxdayga galay qabiil baa aniga la igu kacsan qabiil baa dalkayga lagu burburin ka gudbay laakiin dhalinyara soo baxday la yiraahdo nabad iyo nolol mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wuu guuleysan Soomaali baa jecel wuxuuna ka guuleysan cadawga duulaanka ku ah ee damacsan divide and rule inuu dalkayga ku hayo ayuu ka guuleysan already wuu guuleystay wax walba isku dayeen waa ka guuleysan waayeen ra'iisul wasaaraha fadhiidka ah ee dalkeena hadda sida khaldan loogu dhibay ee la yiraahdo maxamed xuseen rooble ee waa dhaxdaas awoodda laga dhimay ee hadda dib loogu soo celiyay markii hore ta mucaaradka iska gadayo la farmaajo la dagaalamaya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne ilaa la doortaa saa madaxweyne dalka ka ah mucaaradku shalay iska gadayay waa kuwa maanta ayaga ku dhagan beesha caalamku shalay iska gadayay waa kaasoo siyaasad garanayn aan u oolino igraanay tuu faraha la galay maanta beesha caalam ku dhagan tahay rooblow indhaha ku hayo lacag raadis baa ahayd ninka isku dayay mishaarka ciidamada inuu dalbado asaga ay soo maraan ayaa tahay lagaadiid ummaddu way ku sugaysaa doorasho inay dhacdaanna filayna oo aan doorayna in la insha Allah waa la dooran mudane maxamed cabdullaahi farmaajo qalbigeena la jiro wallahi inuu san anoo duqbirowe shilin lacag isiin qabiilna ii xigin laakiin haddana inuu yahay qof daacad ah dalkan jecel qaxootinimadan annagu ku nimid ay dadkanaga ku jiraan inuu ka saaray inay ka go'an tahay yaan madaxweynaha ku garab taagana sheer gareeya cajalada gaarsiye maanta inta muraajacadan boonaaya cirka geeya cajaladan salaam calaykum